wiilkan u jeedin baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay asaga qabsaday maadaama laga been abuurtay oo la soo dhigay meelo kala duwan waxaan la sheegay wiilkan jecel inuu ku dhacay laakiinse waxay noqotay been tii ugu weyneed ee noqotay wuu soo hadlay wuxuuna sheegay in aysan waxba ka jirin arrimaha la sheegay oo caafimaad qabo sidoo kalena uu yahay wiil wax jila muuqaaladaas aad u jeedin wuxuu yiri waa jiliin sidoo suuqan gaar aan ka shaqeynaa Honafig aadii wuxuu dareemaa dartii saddex wadiga si waxa la shaqeynaa naaga waali karto ma ahan holka qaran kambaanad 4,000 qof aankiiso aan ka dhaxkay jirno sidoo kale wuxuu sheegay in uu meelaha la iskugu tago kale oo ka shactiray jiray oo dadka u madadaali jiray laakiin marnaba ay iska ahayn waali dadka laakiin Soomaalida haday ka waalayaan way ka waalayaan sidoo kale been abuurka baraha bulshada saaid ugu badan yahay waxa jirta gabar kale sidoo kale ayadana soo gashay baraha bulshada ayadoo wajigeeda yaani garaafo waaweyn loo geystay sidoo kale dad badan ayaa waxay u galiyeen suuqa in walaalkeed uu dilay maadaama uu ku xumaaday inay soo qaawayso ama dhar qafiif ay soo gashatay intani anu walaal sidan ii dilayna ma jirto taasna sax maysan noqon oo way ku dhaceen mar kale arrin kale oo ka hadlaa jirto wiilkan oo sheegay qabiilka Soomaalida waxa waali kara inuu yahay qabiilka iyo qabyaalada ari waxa ay gubeen waa mid qaan niyo wadankan Soomaali waxa baabiyo waa qabiil waa qab iyo meelaha isku tago firiku durirka sidoo kale maalayacniga iyo sharciyaasha aan lagu dhaqmaynin hadad fiirisi muuqaaladiisa laga soo duubay badanaa wuxuu wataa فنان عالم كصومالي كسورين هي وويل ما شاء الله قلبي في عن سريو من نسمو هنزيدو يا كنسيب ما شاء الله قلبي في عن وسيدو هادلنا سي وناكسن وصوماليدنا اي ku qanceen ay noqotay laakiin se wararkii laga faafiyo waxay noqdeen warar been abuur ah